قلب لكم تترى بالحب سرت بالأرواح والطير يغردكم مرحا بنشيد العذب الصداح بنشيد العذب الصداح يا طالبة العلم البشرى بنور الفوز الوضاح قد نلت طموحا يا نبضي طالبتي شمسي بصباح. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كسر دبادة عشر يديني مادة حسابتها فصل كأفراد الدكسي سره وحن كودي جرنا جبتر كوبات وحنا ودن بيسي تصالحها كتابنات هاتنا حقان دونا تصالحها كوي تبنات تصالح كوي تبنات محوي هاي تصالح كوي تبنات وحنا لويدي fine waxaa la yiri the value waxa soo heshaa qiimaha of 6 trigonometric function is lixda trigonometric function of theta ee theta if 2 cos theta hadii 2 cos theta ay la mid tahay 4 loos dhigashan 90 and 90 less than theta and greater than and theta less than greater than 90 and less than theta waxaa la yiri theta daada afwan meeshaan ay qaldan tahay waxa la rabaa theta daada 90 way ka weyn tahay 180 ma gaarin yani waa waaxda labaad marka goormo xagasha ka weyn tahay 90 180 aysan gaarin waa qaybta dhexe 90 iyo 180 inta u dhaxaysa waxa la yiraahdaa waaxda labaad waa ka marka waxa la yiri waaxda labaad inay tahay theta deeda waaxda labaad dabcan calaamad isbedeli doonaan oo sin kana waaxda labaad calaamad ku jooga cos kana calaamad tan kana calaamad mid kasta calaamad ku jooga waaxda labaad waxaan naqanaa costa minus ah costa iyo tanka minus waxa balance ama bes esta sin theta balance okay aan gudagal marka 6 trigonometric function jidri 6 trigonometric function qaacidada hal mar aan wada fiirino marka 6 trigonometric function qaacidadiisa waa kana sin a waxa lagu helaa opposite kani waxa la yiraahdaa midkan adjacent la yiraahdaa adjacent waxa mid kasta xagasha ku dhagan ee adjacent loo yaqaan adjacent midka xagasha ku dhagan midkan jiifa asigan xagasha ku dhagan hypotenuse la yiraahdaa waa shakaal laakiin isagu wuu jiifa midkan ama ha taagnaado midkan toosan ma ha taagna mar waxa dhici karta isagoo haduu taagan yahay isagoo jiifan oo dhici karta xagasha meesha ay ka dhalato hada xagasha meeshaan ay tahay oo marka waxaan dhihin doonaa kana waa adjacent hada xagasha meesha ay tahay xagasha waxa diris la maxaa la dhahayaa lankan kana waxa yiraahdaa adjacent kana waa hypotenuse waa shakaalkii xagasha kan ka soo horjeedana waxa la yiraahdaa opposite la yiraahdaa sin a maxaa lagu helaa marka waxa lagu helaa opposite loo qaybiyo hypotenuse cos a waxa lagu helaa adjacent loo qaybiyo hypotenuse tan a waxa lagu helaa opposite loo qaybiyo adjacent sin a waa kana opposite kan oo loo qaybiyay hypotenuse ka cos kan maxaa waa adjacent loo qaybiyo hypotenuse tan kana maxaa waa opposite loo qaybiyo adjacent saddexdan dambe waxay cagsi ku yihiin saddexda kore sin ka waxa cagsi ku leh cosec theta csc waa cosec ayaa laga soo gaabiyay cosec a waxa lagu helaa hypotenuse loo qaybiyo adjacent opposite aan rabaa sin ka waxa lagu heli jiray opposite loo qaybiyo hypotenuse soomaan kala gidi hypotenuse loo qaybiyo opposite kana lagu helaa cos ka waxa lagu heli jiray adjacent loo qaybiyo hypotenuse hadii la kala gidi waa hypotenuse loo qaybiyo adjacent waxa lagu helaa sec a waa hypotenuse loo qaybiyo adjacent tan ka waxa lagu heli jiray opposite loo qaybiyo adjacent cot a waxa lagu helaa isagoo la kala gidiyay adjacent loo qaybiyay hypotenuse saddexda trigonometric function ayaa ku raadin doonaa qaacidadan haduu ilaahay yiraahdo kaliya waxaad ogaataa maxaa la siiyay cos 2 theta sadarteeda hal xab xitaa ma waa inaan soo helaa horta mid oo soo heli karaa cos 2 theta qaacidadeeda double angle-ka waxa lagu heli jiray 1 minus 2 sin square theta ama 2 sin square a qaacidada lagu heli jiray taas baan hal angle baan soo raadsan doonaa kadibna waxaan heli doonaa shanta kale si fudud oo hal hadaas inta kale waad heli kartaa oo way fududahay waayahay aan gudagal bar shaqadeena marka waayahay meesha waan joognaa ku shaqeyn lahayn waxa yiri cos 2 theta wuxuu kulmiyaa 405 theta daadana 90 way ka weyn tahay 180 maysan gaarin oo waa waaxda labaad horta cos 2 theta maxaa lagu heli jiray qaacidada cos 2 theta ayaan rabaa inaan soo saarto cos 2 theta maxaa lagu heli jiray waxaa lagu heli jiray 1 minus 2 sin okay square theta 1 minus 2 sin square theta ayaa lagu heli jiray cos 2 theta waan haystaa waxaan u baahanahay inaan soo saarto waa sin kan marka
square-ka iyo 2da iyo waxa dhan inaan ka baabiyo sin-ka kaliya soo saarto baan u baahanahay ayahay cos 2 theta meeqaan haystay cos 2 theta waxaan haystaa waa kana 4/5 ayaan haystaa ku bedelo marka booska cos 2 theta waxa ku bedelna 4/5 wuxuu la mid yahay 1 minus ka sii soo qaado 1 minus 2 sin square theta si saan isaga soo qaato 1 minus 2 sin square theta waa yahay sida markay tahay waxaan u baahanahay inaan iska wareejiyo minus 2 dhanka aan u wareejiyo 4/5 dhanka aan soo wareejiyo dabcan calaamadaas bedeli doona kan marka xag u wareejiyo calaamada minus ah plus ay noqon doontaa kan markaan dhanka kale soo wareejiyana minus ku imaan doona 1 ka meeshiisa iska yaalo okay dhankaan soo wareejiyo 2 sin square theta wuxuu la mid yahay 1 ka sidiisu yaala isma bedelin 4/5 kan muxuu inta ku imaan doonaa dhankan kale wuxuu ku imaan doonaa calaamadiisa isbedel doonto maadaama xagga plus uu ku joogo inta wuxuu ku imaan doonaa minus meesha markaan taaganahay 5 kan ayaa 1 ku dhufanaya 4 ka jaraya ayay aan ku socdo bal kan si soo qaado 2 sin square theta 2 sin square theta sidiisa aan u soo qaato bal waxaan leeyahay 2 sin square theta 5 hal ku dhufo waa 5 4 ka goo meeqay noqonaya marka hal meesha kor hal ka soo bixi doona hooseeyahana 5ta sidiisa aan soo qaato okay waxaan u baahanahay labadaani inaan baabi'iyo sidaan ku baabi'i karaa waxaan ku baabi'i karaa meel kastaba inaan laba u qaybiyo dabcan meesha hadda laba u qaybiyo labadan way bixaysaa hadii tanna labadan way ku dhacaysaa okay aan saas sameeyo marka meel kasta aan laba u qaybiyo labadaas la bixi doonto meesha waxa ku soo hari doona sin square theta bis ku soo hari doonto dhanka labada dhinac hadii laba loo qaybiyo dhankan labadaani waan u qaybinaa hadii aan dhaho qaybtan hoose isku dhici doonaan maxay noqon doontaa 1/10 ay noqon doontaa hal la hoos dhigay 10 ka square ka maxaa lagu baabi'i karaa square ka waxa lagu baabi'i doonaa square root ayaa lagu baabi'in karaa square ka waxa lagu baabi'in karaa square root okay square root labada dhinac aan square root saara marka labada dhinac aan square root saara ama xidig laba jibaar labada dhinac xidig laba jibaar saar sin square theta xidid saar iyadu sin square theta xidid saar okay wuxuu la mid yahay 1/10 isagana radical aan saarno 1/10 radical saar isagana okay maxaa isla bixi doona marka yahay square kan square root ka way isla bixi doonaan dabcan maxaa meesha ku soo hari doona marka waxa ku soo hari doona sin theta ayaa meesha igu soo hari doonta markaan isla saaro okay wuxuu la mid yahay laakiin kan sidiisu noqon doona asagoo xididka 1 ka wuu ka baxaa laakiin 1/10 noqon doonta 1 ka saar maxaa soo hari doona 1 la hoos dhigay radical 10 radical 10 ka isagu kama baxo 1/10 noqon doona marka noqon doonta 1 la hoos dhigay radical 10 okay sin theta waa soo helay marka sin theta hadii aan soo helay waxaan u baahanahay marka shanta kale inaan soo helo waa inaan cos soo helo waa inaan tan soo helo cosec waa inaan soo helo waa inaan sec soo helo waa inaan cot soo helo way sidaan ku soo heli karaa marka hal mar aan marka dib ugu laabano qaybihii maxaa la dhahay trigonometric ratioska aan dib ugu laabano trigonometric ratios qaacidada aan dib ugu laabano horta intaanan ka bixin sin theta waxa rabaa over radical 10 radical kan hoose aan iska bedelan laban leena radical inuu hoose inta badan ma wanaagsano inkastoo hadda aan ku shaqeeyeen wax aysan ka bedelmeelin laakiin haddana aan isku dayno bal inaan bedelno saan hoose radical u bedelo waxaan ku qasbanahay hooseyaha inaan kor iyo hoos baan ku garaaco hoosna inaan ku dhufto radical 10 korna aan ku dhufto radical 10 bal aan sidaan sameeyno waxay soo bixi doon marka 1 hadii radical 10 ku dhufto maxaa waaye waa radical 10 un bes okay hooseyahan labada radical isku dhufto radical 10 radical 10 maxaa waaye waa radical 100 waa radical 100 ama la xidid laba jibaar 100 waaye okay radical 100 haye
equal la iska sii leh kan kore kama baxa dabcan radical 10 kan kama baxa sidiisa soo qaadana radical 10 kan kama baxayso muxuu noqon doonaa marka radical 10 buu noqon doonaa leena radical 10 radical ma ka baxa ma kama baxo sidiisa soo qaadana loo qeybiyay 100 wuu ka baxaa laakiin 100 intuu ka imaado 10 uu dhufto ka imaado sadarteed 100 wuu ka baxaa afan meeshan waxa iga maqan radical ya afan meeshan kore radical iga maqan radical afan meeshan kore waxa rabaa aan dhaho radical 10 radical 10 oo hoos dhigay 10 okay ugu dambeyn marka sin theta maxay soo baxday sin theta waan helay oo sin theta markii aan bedelay sin theta waxa soo baxday xaaladahay radical 10 oo 10 ugu dambeyn waxaan rabaa marka inaan ogaado meeshan inaan wax soo saaraan rabaa waxa la ii diray hadda sin waa soo baxay okay waxa la ii baahan cos iyo tan iyo cot iyo waxa qaacidooyin aqaana laakiin si aan horta u soo helo horta sin theta maxaa aqaana haday qaacidooyinka si aan soo arkay maxay ahayd qaacidooyinka soo arkay maxay sin theta waxa lagu helaa bay ahayd sin theta waxa lagu helaa opposite loo qeybiyay hypotenuse sabe ahayd waa opposite loo qeybiyay hypotenuse sawaan ku heli jiray qaacidada baa lagu heli jiray opposite loo qeybiyay hypotenuse hadii opposite marka opposite waxa ah radical 10 iyo hypotenuse 10 taan ogaal leeyahay cos sidaan ku soo heli karaa marka si aan cos soo helo waxaan u baahanahay hal mar qaacido yar inaan wada arago waxaan soo baranay sane in lagu helo opposite loo qeybiyay hypotenuse sane waan soo arkay opposite noo soo helay hypotenuse macnaheedu maxay tahay kanna waan soo helay yaa iga maqan kan angle kana iga maqan oo maxay oo ka soo horjeeda adjacentiga kan deriska la xagasha kan deriska la waa kana xagasha midka deriska la diidiray xagashan midka deriska la okay bal aan soo qaadano anagana xagasha midka deriska la waxaan rabnaa inaan iyadoo xaraf ku muujinayo hadii kani midkan adjacentiga a oo dhigma kana waa b kana waa c kana waa a kana waa b kana waa c hadda maxaan haystaa marka opposite maxay u taagan tahay opposite waxaan u taagan tahay waxaan qaadan karaa xarafka b hadii doon ay meel la saga qaataa opposite kuwan waxba ma ka soo kordhinayaan opposite oo aan dhahnay waa xarafka b waan haystaa c na waan haystaa maxay iga maqan a okay iyadoo xaraf aan loo muujiyo qaacidooyinka kuwana waa Pythagorean theorem a iga maqan samaan a maxaa lagu helaa c square minus b square لأنه وأنا صاهل كان مقام سيان أهلا كاس صابته كاس محلو هلا فيري كاس محلو هلا adjacent لقى hypotenuse adjacent ما هي opposite هي hypotenuse بس هاي مركز سيان صاهل محل ده هي opposite سيان صاهل محل ده هي adjacent قاعدة adjacent أو سيان كاس صاهل قاعدة adjacent أو بهنا adjacent وأنا صاهل عرض حرفكم باس كأنا صاهل adjacent وأنا Pythagorean theorem استعمالها بس Pythagorean theorem محلو هلا radical c square minus b square أنا استعمال مركب ده ورقنا c محنا هستا b محنا هستا c hypotenuse أيو تاجن b محاو تاجن محاو تاجن opposite كا okay وكنا opposite محاو تاجن ده حرف b وتاجن يهاي hypotenuse محاو تاجن يهاي حرف c marka b waxaan haystaa radical 10 c waxaan haystaa 10 a waxaa lagu helaa hadda soo arkay afan a waxaa lagu helaa radical c oo la square gareeyay oo laga jaray b oo la square gareeyay isagana taa waa lagu helaa c waxaan haystaa waan u jeedaa c maxaan haystaana c waxaan haystaa 10 oo hypotenuse c is ku dhigay c waxaan haystaa 10 okay maxaan haystaa b na waxaan haystaa opposite y radical 10 haystaa okay inta soo qaata marka waxaan leeyahay wuxuu la mid yahay radical aye c maxaan haystaa c waxaan haystaa 10 oo la square gareeyay 10 la square gareeyay okay laga jaray haye maxaan haystaa b na b waxaan haystaa radical 10 soo aan ku bedelo radical 10
oo maxaa ah oo la isku wargareeyay isagana radical 10 oo la isku wargareeyay. Okay, aan sii wadno marka wuxuu la mid yahay haddii aan square gareeyo radical 10 haddii aan square gareeyo maxay soo bixi doona 10 haddii aan square gareeyo waxay soo bixi doona 100 laga jaray radical square kan iyo radical kan waa isla baxayaan marka labadooda waxay soo bixi doona 10 bis. aan sii wadno afwan meesha aan sii wadno waxaan raadinayaa waa hal dhinac raadinaya haye 100 haddii aan 10 ka gooyo maxay soo bixi doona 100 laga gooyo 10 waxa soo bixi doona 90 afwan 100 laga gooyo 10 waxa soo bixi doona 90 ay soo bixi doona 90 radical ma ka wada baxaa waa may laakiin qayb kamid ah ka baxdo 90 kan intuu ka imaaday marka 90 kan wuxuu ka imaaday wuxuu la mid yahay radical wuxuu ka imaaday aan hal mar kala qaado 90 kala qaado wuxuu ka imaaday 9 lagu dhuftay 10 wuxuu ka imaaday 9 lagu dhuftay 10 ayuu ka imaaday marka dabcan 9 ku ka baxaa laakiin 10 kama baxo aan kala qaado laba radical aan kala siiyo si aad fahanku u soo dhawaado wuxuu la mid yahay kay radical midba goonigiis u sii 9 okay lagu dhuftay radical kala 10 dabcan ujeedaa waxaan kala qaaday 9 iyo 10 mid radical ku sii haye 9 ku ka baxaa radical waa 3 laakiin kama baxa midkan radical 10 kama baxo sidiis u soo qaada marka 3 radical 10 ayaa ii soo baxay maxaa la dhahayay waxay soo baxay 3 radical 10 marka hadda waxaan leeyahay marka cos theta maxaa lagu helaa cos theta maxaa lagu helaa qaacidada hore aan u naqaanay waan soo aragnay cos theta maxaa lagu helaa marka cos theta waxaa lagu helaa maxay ahayd adjacent loo qaybiyay hypotenuse hadda adjacent waa kana soo saartay waa eeda adjacent waa kana waa soo saartay b-dan waxaan dhahnay waa opposite c-dan waa hypotenuse adjacent waa tan soo helay maxaan kala soo helay horena waxaan soo helay hypotenuse iyo opposite hypotenuse soo helay waxaan leeyahay marka waxaa lagu helaa cos theta waxaa lagu helaa adjacent loo qaybiyay hypotenuse adjacent loo qaybiyay hypotenuse ayaa lagu helaa ayahay aan ku badbadasho marka adjacent maxaan haystaa adjacent dabcan hadda soo saarto waa kana waa radical 3/10 waa adjacent soo helay radical 3/10 loo qaybiyay hypotenuse hore aan soo helay hypotenuse aan ku laaban maxaan soo helay hore hadda markaan sheegay waa kana hypotenuse maxaan dhahnay kan hoose waa kan hoose muxuu yahay 10 hypotenuse marka waxaan haystaa 10 aan haystaa hypotenuse 10 haystaa okay 10 ku badal marka ka waxa la bixi doona afwan waxa la baxay ma jiraan waxay soo baxay 3 radical 10 loo qaybiyay 10 okay kan si furfurmay meesha uu tagay laakiin waxa soo xasuusataa waaxda labaad waa la tiitada waaxda labaad cos maxay ku tahay cos minus ku tahay saa darteeda waxaan leeyahay cos theta waxay ila mid tahay calaamada minus ku waa inaan raaciyo laana waxa la ii sheegay inay minus tahay waxaan leeyahay cos theta waxay la mid tahay minus 3 radical 10/10 dabcan waan soo helay cos theta tan theta maxaa lagu heli jiray soo xasuustaan waxaa lagu heli jiray opposite loo qaybiyay hypotenuse okay tan theta waxaa lagu helaa opposite okay waxaad tiraahdaa opposite loo qaybiyay afwan waxaan rabaa opposite afwan carabiga saarma opposite loo qaybiyay maxay adjacent ka waa lagu helaa opposite waan aqaanaa adjacent waan aqaanaa dabcan adjacent waan soo helay oo adjacent maxaan haystaan adjacent waa kana radical 3/10 waay opposite na maxaa waay radical 10 waa hore u soo arkay
opposite hore u soo arki radical 10 u yahay inta balan isku qaybina marka waxaan leenahay marka tan theta wuxuu noo lamid yahay kaliya booskan opposite iyo waxaan bedeli doonaa iyo adjacent waxaan bedeli doonaa nambarada aan haysto waan aqaanaa booskan opposite waxaan ku bedelayaa opposite wuxuu lamid yahay radical 10 طبعا wuxuu yahay radical 10 ayuu lamid yahay adjacent wuxuu lamid ahaa asagana adjacent hadda waa soo helay adjacent fakana waxaan soo helay adjacent 3 radical 10 waxaan soo helay 3 radical 10 okay sisi uu soo qaad aku bedasha marka meesha 3 radical 10 okay radical 10 kan isku qaybi karaa iyagoo la isi dhabas waxaad tiraahdaa radical 10 iyo radical 10 isla bix radical 10 hadii loo qaybi karo waxa soo bixi doona 1 hadii radical 10 loo qaybina 3 baa hoos ku soo hari doona 1/3 waxaa soo xasuusataa weli waaxda labaadi kaliya sin plus ah marka waxa minus ah tan iyo cos waa minus waxaan leeyahay marka tan theta ugu dambeyn wuxuu ila mid yahay tan theta waxay la mid tahay minus 1/3 tan waan soo helnay kuwa saddexda kala hartay marka cagsigii waxaan ka dhigaa bes qaacidooyinkii waxa kale oo la idin maxay ahaayeen aan dib u xasuusano waxa kale oo la idin yaarsanay sin iyo cos kay qaacidadan hal mar dib u laabto waa kana cosec ayaa la idin cosec waxa lagu leeyahay hypotenuse loo qaybiyo opposite kaliya waxaan kala gidin doonaa sin jawaabta aan soo helay sectan waxaan kala gidin doonaa cos jawaabta aan soo helay iyo cot jawaabta aan soo helayna tan jawaabta aan soo helay codna ku kala gidin doonaa bis wax kale ma sameyn doono saddex ugu dambeys iska fududyihiin haye aan wadna bal saddex jawaab horno soo baxda waa kana sin theta waxa lagu leeyahay radical 10 loo qaybiyo 10 cos theta waxa lagu leeyahay minus 3 radical 10 loo qaybiyo 10 tan waxa lagu helaa minus 1/3 waxaan soo helay aan dhaho afwan minus 1/3 okay cosec theta hore soo sheegay waxay cagsi ku tahay sin-ka la kala gidiyo waa bes waxaan dhihi doonaa marka okay jawaabta aan kala gidiyo 10 loo qaybiyay radical 10 waqti badan ku faahfaahinna ma hayno waxaan rajaynayaa inta faahfaahinta in laga dhargay 10 radical 10 radical hooseeya waxaad xasuustaa in loo diiday saadarteeda waxaan sameynaa hooseeyaha ayaa labada dhinac sareeya iyo hooseeyaha waxaan ku dhufanaa nambarka hooseeyaha lagu dhuftayda labada dhinac waxaan ku dhufanayaa radical 10 korna waxaan ku dhufan doonaa radical 10 hoosena waxaan ku dhufan doonaa radical 10 okay radical 10 loo qaybiyay radical 10 afan meesha radical 10 aan rabaa inaan ka dhigo radical 10 ده radical 10 haddii aan sareeyaha iyo meesha isku dhufto waxa soo bixi doona 10 radical 10 haddii aan ku dhufto radical 10 waxa soo bixi doona 10 radical 10 ayaa soo bixi doona waxaan leeyahay 10 radical 10 leanna isku ma dhacan iyagu way kala duwan yihiin meesha waxa soo bixi doona marka 10 radical 10 hooseeyaha radical 10 haddii aan isku dhufto 100 radical 100 ay soo bixi doon haddii aan ka saaran 10 ay soo hari doonto haddii hore soo aragnay 10ka iyo 10ka isla bix ugu dambeyn cosec waxa ay soo bixi doonta radical 10 bes cosec waxa ay soo bixi doonta radical 10 dadis cosec waan ka gudubnay waxaan rabaa inaan u gudbo marka waxa la yiraahdo cosec aan gudbo cosec waxa igu xigta sec waxaan dhahnay waa cosko la bedelay coskan oo la kala rogay waa bes minus 3 radical 10/10 waayo waxaan dhihi doonaa minus isofur minus 10 waa minuska hore u yaalo labadooda waxa ka dhaxeeyo minus lede 10 loo qaybiyay 3 radical 10 oo kuwan kora kala bedelay waxa kale oo ku raadin kartaa 1/1 adoo isticmaalaya
oo 1 of isticmaala taa ka fudud idin ku raadin kartaa hooseeyahan si aan u bedelo waxaan ku qasbanahay inaan labada dhinac ku dhufto hooseeyaha maadaama radical uu yahay si aan u bedelo labada dhinac waa inaan ku dhuftaa hooseeyaha aan ku dhufto bal korna waxaan ku dhuftaa radical 10 hoosna waxaan ku dhuftaa 3 radical 10 waxaan leeyahay 3 radical 10 labada dhinac ku dhufo labada dhinac waxaan ku dhufanayaa 3 radical 10 3 radical 10 3 radical 10 hooseeya iyo kor iyo hoosba ku dhufo intaan ku dhufo equal 10 hadii lagu dhufto 3 radical 10 waxa ay soo bixi doona okay aan isku dhufto bal 10 3 ku dhuf maxay soo bixi doona 30 soo bixi doona kor waxa soo bixi doona 30 radical 10 kan si soo qaad doona hadii aan soo aragnay waxaan leeyahay 30 lagu dhuftay radical 10 30 radical 10 ee kor oo dhan ka soo bixi doonta hoosna waxa ay soo bixi doona 3 ku dhufo waa 9 lagu dhuftay radical 10 hadii radical 10 lagu dhufto waa 100 ka saar 10 hore oo soo sheegnay mid ayadana marra waqti badan inay sii qaadato labada kore sida uu soo qaado sababtoo iyagu iskuma dhacaan isla falgali karaan sida uu soo qaado afwan ayahay hooseeyahan 9 ku dhufo waa 9 ugu dambeyn 30 u qeybi 30 hadii aan 9 u qeybi waxa ay soo bixi doona kor hal leeg soo bixi doona radical 10 bisa ku soo hari doonto kor waxa ay soo hari doona radical 10 kor waxa ay soo hari doona radical 10 okay waxaan leeyahay marka radical 10 meesha soo hartay hoosana 9 hadii aan 30 u qeybi waxa ay soo hari doona eberka isla bixi 3 u qeybi hoos 3 ku soo hari doona oo minus afan minus kan soo ilaawe minus ka hadaa uu socdo isagoo wax bedelay ma jiraanba waxaan rajaynayaa in la ila gartay arday oo la fahmay insha Allah jawaabta ugu dambeysay soo baxday markii aan raadisagtaan inta way ila qatay waxa ii dhiman ugu dambeyn inaan soo helo su'aasha ugu dambeysa ee ah cot theta waxay la mid tahay cot theta maxay la mid yihiin taanko la daba gidiyay cot theta maxay ahayd taanko la kala rigay -1/3 maxay noqonaysaa 3 -3/1 3 la hoos dhigay hal dabcan hal hooseeya ah wuxuu qabanaa malahan ugu dambeyn cot theta waxa ay soo bixi kartaa marka -3 cot theta waxay ila mid tahay -3 tusaalaha aad buu dheeraa runtii inta ayuu inagu ogyahay wixii su'aal ahna waxaan rajaynayaa inaad comment ku soo reebi doontaan haddii Ilaahay yiraahdo waxaan idin leeyahay sida iyo nabadgelyo billahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh